Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dowladda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu wareysigan kaga hadlayaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay waxa uu qabsoomay boqolkii maalin ee uu xilka hayay, safaradii uu dibadda ugu baxay, dhismaha ciidamada, cunaqabataynta hubka, qaraxyada Muqdisho ka dhacay inuu maqlay iyo in kale, isbedeladii uu ballan qaaday halka uu marayo, taariikhdiisa, noloshiisa qoyska, xaaskiisa sida ay isku barteen, kooxda uu kubadda cagta taageero, magaca Farmaajo siduu ugu baxay iyo fariinta uu u dirayo dalalka Carbeed. Wareysigan waxaa daabacay wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa magaalada London ee dalka Ingiriiska ee afka Carabiga lagu qoro. Su'aalaha la weydiiyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana u dhacay sida tan: 100 maalin ayaa ka soo wareegatay markii lagu doortay xilka madaxtinimada Soomaaliya. Xaalad noocee ah ayaad ka dhaxashay dowladdii ka horeysay? Runtii waxaan dhaxlay xaalad aad u adag oo dhan walba leh. Inkasta oo dowladdii hore ay dadaal ku bixisay la dagaalanka argagixisada, haddana dhanka ammaanka waxaan la wareegay xaalad aad u murugsan. Xoogga hubeysan ee Al-Shabaab weli waxa ay khatar ku yihiin deganaanshaha dalkayga. Waxaan dhaxlay xaalad dhaqaale oo aad u adag oo aysan xukuumaddu u bixin karin mushaaraadka ciidamada si nidaamsan. Sidoo kale ciidankan waxa uu u baahan yahay nidaam, dib u dhis iyo hubeen. Dhanka adeegyada bulshada weli awoodda dowladda waa mid xadidan, gaar ahaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada. Ma oranayo innaga ayaa meel ebera ka bilownay, laakiin caqabadaha nagu horgudban way badan yihiin marka la barbar dhigo fursadaha la heli karo. Waxaad u gacan haatisay isbeddel markii aad ololaha doorashada ku jirtay. Waa maxay waxyaabaha aad beddeshay muddada 100 maalin ah ee ugu horeysay xukunkaaga? Isbeddelka waxa uu ahaa halhees muhiim u ahaa dhammaan ololaha musharaxiintii ka qayb galay tartankii doorashada madaxtinimada Soomaaliya. Waxaana dhammaantiin isku raacsaneen sida ay muhiim u tahay in arrinka wax laga beddelo. Balse aniga iyo kooxdeydaba waxaan lahayn halkudhig kale oo aan dhib badnayn oo ah nabad iyo nolol. Shacabka Soomaaliyeed waxa uu u baahan yahay nabad iyo inuu si sharaf leh u noolaado si la mid ah shucuubta kale ee caalamka. Waana laba arrin oo isku xiran. Markii ay inoo suurto gasho inaan wax ka beddelno xaaladda ammaan oo aan ka adkaano khatarta Al-Shabaab iyo Al-Qaacida, waxaan awoodi doonaa inaan shacabka Soomaaliyeed u samayno nolol sharaf leh, inagoo dib u nooleynayna dhaqaalaha, fursado shaqo abuurayna, arrinkana sidiisii hore ku soo celinayna. Si guud, muddadii la soo dhaafay, aniga iyo kooxdeeda waxaan ku jirnay xilliga qorsheynta iyo dejinta kala horreynta hawsha. Xilliga soo socdana waa xilliga fulinta, inagoo og in golaha wasiiradu aysan weli gaarin 2 bilood. Booqashadii ugu horeysay ee aad dibadda ku aaddo waxaad ku tagtay dalka Sacuudiga. Maxaa laga fahmi karaa tallaabadaas? Booqashadaas waxa ay tusaale cad u tahay halka fog ee uu gaarsiisan yahay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Sacuudiga ee taariikhda fog leh. Ilaa asaasihii dowladdii Sacuudiga, Allah u naxariistee, Boqor Cabdulcasiis, Sacuudigu waa uu barbar taagnaa Soomaaliya xilliyada adag. Waxa uuna dhinacyo badan uga taageerayay si joogto ah. Waxaan la kulmay waa adeegaha labada xaram ee sharfan, Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis, oo ii muujiyey sida uu u danaynayo arrimaha Soomaaliya iyo sida uu diyaar ugu yahay joogteynta taageerada Sacuudiga ee dalkayga. Intii aan Sacuudiga joogay, waxaan fursaddaas uga faa'iidaystay booqashada dhulka barakaysan. Waxaana Alle ka baryay anigoo cumraysanaya inuu ii fududeeyo u adeegidda waddankayga, gutana mas'uuliyadda. Waxaan kale oo aan Alle ka baryay inuu dhibka ka dulqaado shacabkayga. Inaan xilli siyaasadeedkayga ku bilaabay booqashada Kacbada sharafta leh iyo masjidka Nebiga ee sharafta badan, si aan uga helo sahay macnaawi ah oo aan rajaynayo inay iga kaalmayso qaadidda culayska mas'uuliyadda. Inooga waran nooca taageero ee aad Sacuudiga kala kulanteen? Boqor Salmaan Soomaali ahaan wuu inoo gacan furnaa, waana waxa aan boqortooyada uga baranay. Haddii aan qaar ka mid ah faahfaahiyo, Sacuudigu waxa uu naga taageeraa dhinacyo badan oo ay ka mid tahay dib u dhiska ciidanka, la dagaalanka argagixisada, iyo mashaariicda kaabayaasha iyo kabka miisaaniyadda xukuumadda. Waxaa intaa dheer gargaarka degdega ah ee u gaarka ah xaaladaha abaaraha dalka. Waxaa intaa lagu dari karaa taageerada ay horeyba noo siin jireen oo dhinacyo badan taabanaysa. Annagana dhankeena waxaan boqorka u muujinay in Soomaaliya ay dhinac taagan tahay boqortooyada marka laga hadlo in la mideeyo aragtida khusaysa arrimaha gobolka iyo caalamka. Waxaan isku si u arkaynay arrimahaas. Markii aan Boqor Salmaan la hadlayay, waxaan dareemayay inuu yahay walaalka weyn ee ku dadaalaya inuu dhammaan caawiyo. Waxaan rabaa inaan carabka ku adkeeyo
in ammaanka boqortooyada uu ku xiran yahay ammaanka Soomaaliya oo aanan aqbalaynin in la xumeeyo maxaa yeelay waxa ay inaga iyo muslimiinta dunida ku nool oo idil inoo tahay meel ruuxi ah. waxaad ka hadashaa dhismaha ciidanka xoogga, waa maxay qorshihiina arrinkaasi ku aadan? goormee ayaad u malaynaysaa inaad ka maarmaysaan ku tiirsanaanta ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM? dib u dhiska ciidanka xoogga dalka waxa uu qayb muhiim ah ka yahay barnaamijkeena xukuumadeed. waqtiga ugu badan ayuuna inaga qaataa si loogu gogol xaaro dib u qaabeynta ciidanka iyo nidaamintiisa si sugan. muddadii la soo dhaafay waxaan ku mashquulsaneen dib u eegista qaab dhismeedka qaybaha kala duwan ee ciidanka iyo tirakoobka qalabka ay u baahan yihiin iyo sidoo kale qiimeynta baahiyahooda. ciidanka Soomaaliya iyaga oo la ildaran dhibaatooyin dhinacyo badan ka haysta, haddana waxa ay awoodeen inay guulo ka soo hooyaan dagaalka ay kula jiraan dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab. waxaana ku dadaalaynaa inaan hormarino awoodooda. ilaa iyo hadda waxaan bedelnay hoggaanka sare iyo kan dhexe ee ciidanka. waxaan u magacawnay hoggaan cusub oo aan aaminsanahay in xilligan mas'uuliyaddaasi qaadi karaan. waxaan doonaynaa inaan dhisno ciidan nidaamsan oo awooda ilaalinta xuduudaha iyo difaaca dowladnimada iyo sidoo kale xaqiijinta deganaanshaha. arrinta ku saabsan ciidanka AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala, qorshaha hadda miiska saaran waa in 2 sano gudahood oo hadda ka bilaabanaysa dagaalyahanada Al-Shabaab laga saaro gobollada ay ku sugan yihiin, iyada oo laga ambaqaadayo wadatashyada hadda socda laga bilaabo Oktoobar 2018. waxaan si tartiib ah u bilaabanaya yareynta ciidamada AMISOM si ay booskaasi u galaan ciidamada Soomaaliya. waa inaan inagu qaadanno mas'uuliyadda halka aynu u soconayno. Soomaaliya cunaqabatayn ayaa ka saaran in ay hub soo dhoofsato ilaa bilowgii 90-meeyadii. xaguu marayaa dadaalka ay dowladda Soomaaliya ugu jirto in cunaqabatayntaasi laga qaado si ciidanka loo dhiso loona hubeeyo sida aad wax yar ka horba sheegtay? waan ka xumahay cunaqabatayntaas waa sideedii, waxaana ka dhashay in hubeynta ciidanka Soomaaliya uusan wax badan ka duwanaanin hubeynta maleeshiyaadka Al-Shabaab. waana arrinka sababay dib u dhaca in la wiiqo awoodda ururka Al-Shabaab, kuwaas oo weli halis ku ah xasiloonida. si arrinkaas wax looga bedelo, waxaa waajib ah inay jirto gacan sarreyn ay ciidamadu ka gacan sarreeyaan Al-Shabaab. arrinkaasna waxa uu u baahan yahay in cunaqabataynta hub soo dhoofsiga la inaga qaado. hawsha dib u dhiska ciidanka iyo qaabeyntiisa ee aan gacanta ku hayno wax faa'iido ah ma yeelanayso haddii aan cunaqabataynta la qaadin oo aan ciidanka loo qalabeynin sida ciidamada caalamiga ah loo qalabeeyo. annaga weli waan ku dheganahay codsiga ah xaqiijinta arrinkaas, maxaa yeelay waxaan ognahay in kaalmada ay ciidamada AMISOM-na siiso aysan sii socon doonin. arrinka nidaamka federaalka ah weli doodiisu waxay ka dhex taagan tahay Soomaalida. waxaa jira war sheegaya inaad ka gaabsato nidaamkan oo aad aaminsan tahay dowlad dhexe oo xooggan oo Muqdisho ka maamusho waddanka. maxaad ka leedahay? nidaamka federaalka ah waa mid ku xusan dastuurka hadda lagu shaqeeyo. aniguna waxaan ku dhaartay inaan dastuurkaas raacayo oo aan dhowrayo waddankana aan ku hogaaminayo. marka meel ugama bannaana aragti shakhsi. dastuurka aan aqbalnay inuu dhammaanteen naga sarreeyo ayaa wax walba ka horreeya. arrinka labaad waa maxay nooca federaal ee aan doonayno ama ku habboon shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdiisa. hawshaas waxaa loo daayay baarlamaanka Soomaaliya oo sii wadi doona doodan si uu qaab sugan ugu saldhigo. markii lagu doortay kadib 2 jeer ayaad soo muuqatay adiga oo labiska ciidamada xiran, waxaadna ku dhawaaqday in la soo afjaro dagaalka Al-Shabaab. ma ka dhigan tahay in awoodda ciidan kaliya aad doonayso inaad kula macaamisho Al-Shabaab? xirashadeeda labiska ciidanka waxa uu ahaa tallaabo aan ku xusuusinayay shacabka Soomaaliyeed inaan dagaal furan kula jirno argagixisada Al-Shabaab, laakiin ma aaminsani in dagaalka oo kaliya uu yahay sida Al-Shabaab looga adkaan karo. doorashadeedii wax yar ka hor waxaan dhaqdhaqaaqa ugu yeeray wadahadal iyo cafis loo fidinayo ciddii ka tanaasusho dagaalka 2 bilood gudahood. waxay tahay inaan ogaanaa inaysan dhammaantood hal nooc ahayn. qaar ayaa la soo jiitay, qaar ayaa wax tabanaya, noocay doonaanba ha noqdaan. marka inagu dhib kuma qabno inaan la hadalno. diyaar ayaan u nahay inaan la fariisano Al-Shabaabka Soomaalida ah ee aaminsan inay yihiin muwaadiniin sideenna oo kale ah ee ka waantoobaya falalka qarbudaada ah. laakiin ajaanibta iyo kuwa sida aadka ah xag jirka u ah ee ku xiran ururka Al-Qaacida iyo kuwa dilalka u ooman, waan ognahay inaysan aqbalaynin wadahadallada ay dowladda la galaan ama cid kale. kuwaas wax aan dagaal ahayn wax kuma laha. dowlado badan ayaa Soomaaliya taageera isla markaana dana iska soo horjeeda kala gobolka iyo dibadda. walwal ma ka qabtaa inay saameyn xun ku yeelato xaaladda Soomaaliya iyo xiriirka aad dowladahaas la leedihiin?
waa sax in Soomaaliya ay saaxiibo badan ku leedahay dowladaha caalamka oo ay waxyaabo badan oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada, taageerada iyo xasiloonida kobaca iyo maalgashiga dalkeena. Danaha dowladahan way kala duwanaan karaan, laakiin innaga waxaan quseeyo danteena. Xiriirka aan dowladaha dunida la leenahay waxa uu ku dhisan yahay danta qarankeena iyo danaha labada dhinac ee dowladahaas. Mana aha wax aan innaga hadda bilaabayno. Waxaan xaqiijinaynaa inaanan doonaynin inaan dhinac ka noqonno koox gaar ah si aan u dhibaatayno koox kale ama dowlad kale. Waxaan nagu filan xaaladda aan dhexda uga jirno. Soomaaliyana ilaa markii aan xorriyadda qaadanay waxaan caan ku ahayn dhexdhexaadnimo guud. Imaaraadku waxa uu ahaa waddankii labaad ee Carbeed oo aad booqato. Maxaa idinkugu hirgalay booqashadaas? Dowladda Imaaraadka xilligan waxa ay ka mid tahay dowladaha Soomaaliya taageera kuwooda ugu waaweyn. Booqashadeedii Abu Dhabi waxa ay ahayd mid guulaysatay marka dhan walba laga eego. Waxaan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo quseeya xiriirka labadeena dal oo ay ugu waaweynayeen ammaanka. Waxaan sidoo kale isla eegnay horumarka xerada tababarka ciidamada Soomaaliyeed oo ay Imaaraadka Muqdisho ka dhiseen. Sidoo kale isbitaalka Sheikh Said ee adeegyada caafimaadka bilaashka ah siiya dadka ku nool caasimadda. Sidoo kale Imaaraadku waxa ay ballan qaadeen inay naga taageerayaan barnaamijka dib u dhiska ciidamada iyo inay gacan ka geysanayaan bixinta mushaaraadka ciidamada iyo taageeridda miisaaniyadda xukuumadda. Waxaana sugaynaa in arrimahaas oo dhan ay fuliyaan. Qaabkee ugu habboon in dowladaha iyo hay'adaha Carabta ay dalkiina u taageeraan? Soomaaliya waa dal u baahan in dhan kasta laga taageero. Waxaan nahay dowlad hadda uun madaxa kor u soo qaadaysa sanado badan oo dhibaatooyin isxigxigay ah kadib, iyadoo ay muhiim tahay taageerada hay'adaha dowladda si ay u awoodaan inay howlahooda u gutaan sida ugu wanaagsan. Haddana waxay ila tahay in la maalgashado ilaha dhaqaale ee hodanka ah ee khayraadka dabiiciga leh. Beeraha, kaabayaasha, khayraadka badda iyo gaadiidka waa mid ka mid ah taageerada ugu muhiimsan ee Soomaaliya la siin karo xilligan si xasiloonida loogu taageero. Waxa ay sidoo kale fursado shaqo u abuurayaan 70% dhalinyarada Soomaaliyeed. Anaga dhankeenna waxaan diyaar la nahay wax walba ay nooga baahdaan maalgashadayaasha Carbeed haddii ay noqoto mid si toos ah dowladda u siiso iyo mid ganacsiga gaarka ahba. Waa sidee xiriirkiina dowladaha dariska ah Itoobiya, Kenya iyo Djibouti, gaar ahaan kuwa ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya? Xiriirka aan dowladaha dariska ah la leenahay waa mid wanaagsan. Waxaa naga wada dhexeeya khatarta ah argagixisada. Sidoo kale waxaa jira arrimo kale oo aan ku wada mashquulsannahay sida arrinta kobaca iyo la dagaalanka faqriga. Waxaan booqday Kenya oo aan la kulmay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waxaan wada saxiixnay heshiisyo dhowr dhinac ah oo qaarkood la fuliyey, qaarna waddadii fulinta ku jooga. Sidoo kale waxaan booqday Ethiopia. Waxaan la kulmay Ra'iisul Wasaare Haile Mariam Desalegn oo shaaciyay shirkii London ee bishan taageeradiisa dowladda Soomaaliya. Djibouti mar walba way na garab taagneed. Madaxweynaheeda Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu ahaa qofkii ugu horreeyay ee isku dayay xal u helidda dhibaatada Soomaaliya, welina arrinkaas uu u taagan yahay. Waxaan aaminsanahay in dhammaanteen aan u baahan nahay inaan garbaha isqabsanno si aan khatarta naga wada dhexaysa ee halista nagu ah uga gudubno. Waxaa Soomaaliya lagu dhaliilaa in xukuumaddeedu ay heshiisyo badan oo laba geesood ah galaan, kadibna xukuumadaha ka dambeeya ay diidaan heshiisyadaas oo kadib eber laga soo bilaabo. Arrinkaas dowladaha iyo shirkadaha caalamiga ah waxa uu ku abuuray jahawareer. Waxa uuna sabab u noqday in laga fogaado in Soomaaliya heshiisyo lala galo. Maxaad ka leedahay arrinka? Ugu horreyn ilaa iyo hadda ima soo gaarin cabasho arrimahan qusaysa, hadday dowlado ahaan lahayd ama shirkadaba. Laakiin waxaan kuu sheegayaa heshiisyada xukuumadihii hore ay galeen waa ay shaqaynayaan. Waan ixtiraamaynaa, waan u hoggaansamaynaa. Waa caadi in dib u eegis iyo dib u qiimeyn lagu sameeyaa heshiisyada oo wax laga beddelaa iyadoo la eegayo waxyaabo aan horay u jirin xilliga heshiiskaasi oo soo cusboonaada. Arrinkaasna waxaa lagala hadlaa dhinaca ay qusayso. Annaga xukuumad ahaan waan u hoggaansamaynaa wax walba oo xukuumadihii annaga naga horreeyay ay u hoggaansameen. Inooga sheekee barbaaritaankaagii iyo bilowgii noloshaada. Magacaygu waa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waxaan ahay 55 sano jir ku dhashay Muqdisho, xaafadda Isku Raran. Waa xaafad oo basiibo ama Tokyo ahayd oo qaybta qadiimiga ah ee Muqdisho ku taalay. 70meeyadii ayaa la burburiyey. Hadda waxaa laga dhisay beerta nabadda. Aabahay ayaa xilligii gumaysigii Talyaaniga magaalada soo galay. Waxaan wax ku bartay Soomaaliya iyo Mareykanka. Waxaan ku takhasusay daraasaadka Mareykanka. Waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Buffalo ee New York. Waxaan ahaa ra'iisul wasaarihii Soomaaliya intii u dhaxaysay November 2010 ilaa June 2011.
madaxweynaha Soomaaliya ayaana la ii doortay 8 Febraayo ee sanadkan. xaaskaaga sideed ku baratay, sideed si isku guursateen? xaaskayga Seenab Macalin waxaan isku baranay Muqdisho, isku xaafad ayaan ahayn.